كيتاي محبين دوبا إلينا تجكيننا نفتح على مريضا بري أيامنا taliyaha aagga surud ee jabhadda dulmidiid cabdiraxmaan cali guuleed ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in aanay waxba iska bedelin mowqifkii halganka jabhadda dulmidiid isla markaana ay ciidamada dulmidiid ku sugan yihiin saldhigyada kala duwan ee gobolka Sanaag iyo guud ahaan Soomaaliland dhammaan taageerayaasha jooga dad iyo dibad guud iyo dibadda waxaan u sheegaynaa oo u bandhigaynaa oo cadaynaynaa inay sideedii jabhaddu jirto warkana war maafiya wadatay uu yahay asaan ka tashaday dhammaantood waxaan u sheegaynaa bulshada horta waxaan dadka lagu waxaan waa majaraalumin iyo ciidan gaar ah wadata taasna waan ka tashaday indhihiina wax ku arki doontaan si degdeg ah qabadkii iyo mowduucii taliyaha aagga surud ee jabhadda dulmidiid sidoo kale sheegay sida aanu marnaba wax saameyn ah ugu yeelan doonin go'aanka uu sida gaarka ah u qaatay hogaamiyihii hore ee jabhadda dulmidiid jenaraal Siciid Cawil Jaamac Caare iyo waliba kooxo uu sheegay in laga soo abaabulay guriga madaxtooyada ee Muuse Biixi ee Hargeysa kuwaas oo uu sheegay inaan hadafkoodu sii dhaafsiisnayn hunguri iyo dilaal ay wadada ugu sii xaadayaan shirkado shisheeye oo Muuse Biixi la damacsan yahay inuu ku boobo khayraadka iyo macdanta ku duugan deegaanada ay ka soo jeedaan jabhadda dulmidiid ee gobolka Sanaag markii uu dantiisa gaarka ah awal dangaar watay janaalkii meesha uu fushaday go'aan baan qaadanay go'aankii waa ka indhiina ku arkaysan ee idin muuqda arrinkaasna guriga maafiya watay waan dan mustaqbal iyo wax la qaadan karin aan ka talin waxa kale aan idin sheegayaa arrinkan uu been yahay waxay idin cadeynaysaa 900 buu sheegay ninkii meesha haystay oo ciidan 40 baa dadka la tusay dawladda iyo shacabku ugu yigii waxaan inay iska khiyaal yihiin waxaan markaa leenahay dalka iyo dadka mashaariicda iyo baabaqyamada iyo lacag ku doonka hal laga daayo waayo dadka hadii waxaan socod loo sheego waa qawaacid waxaan u sheegaynaa cid kastoo danaynaysa jabhadda inay si u socod doonto una shaqayn doonto dalkeedii hooyada ay joogto waxa qalad muuqda oo la taaban karana ay soo bandhigi doonto dooniyada ismigahana aan si degdeg u dooran doono